سلام مدحوينه كو سلام دب مدحويني waxaa salaantaada u diyaara cutubyo ka tirsan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo kugu soo dhaweynaya akatabada armiska shaqo qaran mudane madaxweyne ku soo dhawow
qabiilkiyo kakaxayso qoyskeed waa waxa qabiilkiyo kakaxayso qoyskeed ugoyo qalinkuye qofna anugu hay ugoyo qalinkuye qofna anugu hay shaqa qaran shaqa qaran shaqa qaran shaqa qaran waa waxa qabiilkiyo kakaxayso qoyskeed waa waxa qabiilkiyo kakaxayso الحمد لله إلهي ومحضه هذه أدبار وحبرينا يا شقاقرا يسموه ذا هذه أدبار وحبرينا معلمين تودا ينتهي تابرتين أرضنا ما تقل جمسي حبريو وحنا هذه أدبار فرح سنة عمانتا إن هالدور كي سومالي الآن يا أقوياها كودي يددك وقوم مضنا حق تعلينتا حق مامول حق وايرك أي كلا صوبة يبقرين دالي يرادا حفلة حريتانكا دفعتي صدحات يا شقاقرا وحيلتها هذا انت اللي سورا لها يا لقى هذه لها حفلة المانتا يقرا كبا والليلي انت هذا الشيء سيدي في حيرة هذا هل كاي كقاضي ما كقاضي هل كاي دقي نوار دقي كو وحانوك عاي إن نكون واقنو إن مانتا أي صاحرانتي تابركي يا وقتي اللي عربنايي dhalinyarada shaqo qaran ee dafcadii saddexaad maadkooda waxaa kaloo halkan soo taagay inaan sheego in dhalinyarada 300 ee inamada ah ee shaqo qaran loo tababaray ay yihiin laga bilaabo maanta kaydka ciidamada qaranka قلب ساعته يرنا أيام ولا مركان سوقه وحي مانتا أي نوشين وذاش إنه هو قوم بدن يدك إنه هو يركز إن بدن ما تاريخ الذي كشكيا إن بدن ما لا مستقرين وحدول يقف ولا سمار لا ذهبا ذاك استوى هاي يا قوم كستوى هاي inuu isweydiiyo halka uu la doonayo inay Soomaaliland gaadho 10 sano soo socda dad badan oo halka jooga ahaan 10 sano soo socda talmaaya hadday nool yihiin oo noloshu gaarsiina wax laga yaabaa inuu cimraayo oo aan shaqayn karin dadka la rabo inay ka fikiraan 10 sano ka bacdi xagee la tagayaa
وادتك دعني حادك dhalinyarada shaqo qaran jaamacada ka baxday ee ka mid yihiin kuwa badan kale ee nasiib u helin halkan iyo aqoonyahanka kale iyo dad kale da'da yar ee da'du soddon tahay waxaan jecelahay inay ka fikiraan Somaliland soddon sano ka bacdi markuu qofkaasi lixdan jir gaaro sidee buu doonayaa inuu ekaato haddayna taa ka fikirin oo aanu qofka higsigiisu halkaa noqon oonu cimrigiisa iyo daadsi ay soo eegin waxayna tahay inaynaan mid fogaanin waxaa kaloo ku dardaarayaa inuu mabda'eenu ahaado ilaahay wuxuu inoo abuuro bini aadmigu abuuray waxaynu nahay khaliifa waa power adduunyada inaynu maamulno bini aadmigu ilaahay u doortay qur-aankiisu ku sheegay mar haddii karaamadaanayna siyon bini aadmi nahay haddaynu nahay Somaliland inagoo aayada raacayna qofka Somaliland da'du yahay halku joogo inuu ka fakiro haddii ilaahay xilka ku saaray xilka ka soo bax maxaa xilka laga soo baxayaa wax kasta oo bini aadmiga ama noolaa wax taraya inaad ku tacabto tacab xageed ka bilaabaysa ciidooda ilaaliso noloshooda ciidda ku xirantay geedka oo beerto noloshooda geedka ku beerto qofka bini aadmiga oo ku kasta uu yahay midab kasta iyo diin kasta uu leeyahay wax tar mooyee waxyeeladiisa aanad ku hamoonin maxaa taa garab yaala hadday nolosha abdaa qaadano oo caalamka diimaha samaawiga falsafadaha dhammaantood taa isku raaceen maxaynu ku daraayay garab socda waxa ka garab socdo kugu waajiba inta kharibaysa ee baabiinaysa inaad ka hortagtaan oo wax saaran mardaad khaliifo tahay marka waxaan isku darnaa Soomaaliland haddaynu nahay inuu ahaado mabda'eenu noolaha waxtar adduunka waxtar bini aadmiga waxtar wixii waxaa wanaagsan kharibayana ka hortag inuu mabda'a ku shaqeyno oo aynu intaa ku soo koobno maanta dardaarankeena waa intaa wixii wanaag oo helisaan wix xumaan ka hortagtaan iyo darkiinoo ka fikirtaan soddon sano ka bacdi xaggee buu noqonayaa iminka waxaa laga yaabaa dhowr tajiraatihiin shan iyo konton markaad gaadho xaggee doorsa dalkaaga inaad geyso markaynu taa isla garanayno horuu mari karnaa ayaynu sii qaadi karnaa waxaynu mahadnaqaynaa dadka noloshooda intii badnayd boqolkiiba 80 u huray inay dalka hore u mariyaan ee halkan ka hadlay ee macallimiinta professorada ee aadnale ee generaalana aad iyo aad baynu ugu mahadnaqaynaa waxaan ku soo koobayaa qodobka taariikhda aad ugu noqdo ilaahay mahdi waxa inoo hirgalay oo dhammaad inoogu dhow hooyigii qaranka taariikhda Somaliland ama museumki waan isma dheer taariikh gaar u leeyahay waxa weeye khayriyadii laga bilaabay Hargeysa inay isku timaado odayaashii oo ay ku tashadaan oo darooda ka tashadaan wax badan uu soo maray halkaba badan uu soo maray taariikhda isagoo maanta waxa ka dhigay museumki qaranka wuxuu u baahan yahay taariikhda dalka oo qoran laga wada qayb galo oo taariikhdeenu wanaag iyo dhibaato ahayd baa la dhigo oo qof waliba ka geysta qaybtiisa si ay ugu cibran qaataan dadka inoo imanaya iyo da'yarteedu waxaan ugu dambaysiintii doonayaa inaan dadka halkan joogo aan isbaro maanta waxaan iswaraagay inuu ka soo qayb galay xafladan nin ka mid ah dhalinyaradii dalka dhibaatada weyn soo martay isagoo aroosa la xidhay dil lagu xukumay 20 jir 10 sano soo dhameeyay haddana nolosha u soo noqday oo aan shaqo tagin ee haddana halkii ka bilaabay sama falka iyo inuu dadka u shaqeeyo maxamed baaruud oo ah gudoomiyaha hay-adda xuquuqsaaka waxaan jecelahay in dadkaas bartaan waa mahadsantihi maxamed iyo ragga lamida waxaan jecelahay in museumka ka qayb galaan waxa ay soo mareen dadka uga warrabaan si aanay dhalinyaradu tii oo kale ugu dhicin aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa dhammaantiin wasalaamu calaykum